Akhayar wadin salaamaya salaan kadib waxaanu rabnaa inaan muuqaalkan saddex qodob uga hadalno waliba arinta laga dhaxawuuray Bilaal iyo Mawlid. Markii ay taagan tahay Bilaal iyo Mawlid waxaanu ku soo dabaqaynaa oo waliba ku soo lafaaqaynaa arinta ku salaysan social media sida wax looga qarabto. Isla arintaas ayaanu mar labaad waxaanu ku xijinaynaa qaybtaas markii ay sii taagan tahay dadka arintan lugta ku leh si aan u sii kala cadeyno. Tan ugu dambeysana daawada waxaanu ka dhigaynaa Bilaal iyo Mawlid. ugu horreyn muuqaalkan maahay mid ku salaysan cadiifad iyo qeyra jabaan waxaanu rabnaa dhammaantiin inaynu iskaga faa'iidaysano si cilmi ugu dheehan yahay. Kow, social media markay taagan tahay weliba dadka falowga badan haystaan ama sheegaan inay warbixino soo tabiyaan waxay soo tabiyaan mararka qaar musiibooyin. waxaanu isweydiinaynaa laba qaybood oo muhiim ah. Musiibooyinkaas ma runbaa oo ma wax dhacayba mise waa musiibooyin la abuuray? Labo, waxaa kale jira qayb kale oo social media markay taagan tahay dad kale falow badan haystaan laakiin warbixino aanan haysan laakiin markay arkaan musiibooyinka noocaas markay dhacaan way soo qaataan si views ay uga helaan iyagoo aan isweydiin warkaan ma runbaa mise been mise wax la abuuraya mise wax aad u dhac intuba kama fiirsadaan kadibna way baahiyaan. qaybta markay taagan tahay waxaanu dib ugu laabanaynaa qaybta abuurista musiibooyinka. tusaale ahaan muuqaal musiiba ayaad ku aragtay social media laakiin weligaa ma isweydiisay qaabka musiibooyinka loo abuuro kadibna lacagta looga sameeyo. markii halkaa taagan tahay waxaanu booqanaynaa cilmi baadhis laga soo saaray Asia. cilmi baadhistan ayaa waxaa lagu qeexay in dilalka kursiyada khaaska ee la geysto iyo meelaha qaar ee la gubo in ay ka dambeeyaan tviyada ugu waaweyn ee dalalka. si aan taa u fahanno waxaanu dib u booqanaynaa qaabka musiibooyinka loo abuuro ee lacagta looga sameeyo. Ukraine ayaa baahisay khaasatan waaxda caafimaadka ayaa sheegtay 57 qofood oo beena in ay dhinteen. isla 57 qofood oo kaamirada laga duubay mid kamid ayaa bacda ka biibaysay kadibna uu soo qaadanayay isagoo soo fadhiistay si toos ah. warbixinadaas ayaa qabsadeen social media waana qaybta Soomaalida ka soo koobiyeen qaabka musiibooyinka loo abuuro. tusaale ahaan waxaanu dib isku soo xasuusinaynaa gabadhii sheegatay Munira ee kansarka caloosha qabtay. baleen dib ugu laabana mawduucayna islaam isaga kiindhigaya ninkii ugu horeeyay ee muuqaalka soo dhigay haddaad ogtiin haddii kalaba hadda ka hor anoo xabsi ku jiro buu lacag igu dul aruursaday. si aan u fahanno kelmadda waxaanu rabnaa inaan dib ugu laabano ama aynu sharaxno sida warbaahinta ay wax u wadaagaan. warbaahinta waxay wadaagaan keliya markay wax dhacaan sida qarax ama musiibo kala gooni ama dab dhacay. waxay kaloo wadaagaan keliya daawade markii shir la qabanayo ama markuu madaxweyne hadlayo. waxay soo wadaageen shakhsi gooniya markii idaacaddu wareysanayso idaacaddu kale lama wadaagto ama tv-ga kale lama wadaagaan. xayeysiimaha khaaska iyo barnaamijyada u goonida ay tabiyaan ka baxsan wararka ma wadaagaan. su-aasha muhiimka aynu rabno inaynu isla fahanno toonka dhalinaysana waxay tahay sidee munasar uu ku soo ogaada shakhsi gooniya dhibaato loo geysto weliba muuqaal gooniya uga soo helo oo weliba u noqdo qofkii ugu horeeyay ee muuqaalkaas hela. wallaahi billaahi tallaahi saddex magacoo ilaahan ku dhaartee ninkii ka dambeeyey in lay dhaawaco lifekuu nugula jiraa ilaaha ku dhaartay ninkii ka dambeeyey in lay dhaawaco lifekuu nugula jiraa ilaaha ku dhaartay. si walba oo roobku ugu doo badda haddana biyaheedu waa dhanaan dadka qaarna waa sidaas. si walbood isugu daydid inaad beddeshid maahan kugu isbeddelaya. ha isku dayin inaad ku qanciso wanaaggaada qof ku qanacsan inuu kugu sifeeyo xumaan sababtoo ah ruuxa ku jecel maba kaa malaysanayo waxaan wanaag ahayn. Soomaalidu markuu qof dhaawacmo runtaan sheegaya Soomaalidu qof markuu dhaawacmo wallaahi oo billaahi oo taa runtaan sheegaya qof markuu dhaawacmo chance abuurma problem ku yimaada chance abuurma qarax ma ku yimaada problem chance abuurma lacag lagu sameeyo. Soomaalidu waa garanaysaan dadka social media dhex ordayo waa munaafiqiin runta marka laga hadlo dad badan oo social media ku dhex jiro oo daacad iska kindhiga jiro oo dhahaya markii beesha filmaanta hindiga oo kale dabad qaata lagu turjumo oo kale وانا بيتي لعقت قيب ka qaadanaya $100 marka la soo diro $50 asaa qaadanayo wuxuu u qaadanaya waxa weeye lacag buu ka sameynaya. inta social media inta daawanayay qof oo matqatan lacagta ummadda soo qaada waxa ka arkay oo qofna waxa ka qaadan oo cadaalad u shaqo waxa arkay Cabdimalik Muuse Cordon Al-Ciisag ilaahina uu fuuday matqatan ka soo xabsiga ninka kaliya kama muuqato wuxuu matqatan Al-Ciisag soo urusha kama muuqato waa artay filaandir wuxuu qabaa matqatan shaatucna matqatan caajidsan وصعد ضدوان بقبع متقطع عمامد وارتي متقطع العزق ده ومدي سو عاويه ميلو بو هذا مركز صاحبيالو ده قف هدول عقاتي نيما سو هرب فريسان روتا وناكسن نيما سو فريسان لهين ونيق بالله دعدع ونسين لها. waxaan soo gaarnay gabagabada barnaamijkeena daawaday dad badan oo social media caanka ah ayaa jira waliba arintan ka dambeeyaan laakiin isla waqtiga la taagay waxay page-kooda Snapchat-da ay ku shaaciyeen inay caawinayaan Mawlid. tusaale ahaan Hodan Online ayaa soo dhigtay page-keeda ama Snap-keeda ku soo qortay inay caawinayso Mawlid laakiin lacagta loo aruurinayo Mawlid oo Bilaal waxba ku lahayn. sida darteed fadlan haddii aad qof caawinayso labada wiil mid kamid ah fadlan isku day inaad heshid ama aad raadisid Facebook-kiisa ama numberkiisa khaaska si sadaqadaada ay gacantaada iyo qofkii u socota toos u wada gaarto. laba qodob oo muhiim ah aynu rabnaa inaan
maanta kusoo gabagabeynay labada wiil ma dhaawac baaha labada wiil waa dhaawac maadaama ay dhaawac yihiin labada wiil waxaa nooga baahayin caawinad qaasa midna qaska ay xabad uga taagan tahay mid kalena dhaawaciisu si fiican loogama dhayin sidaa darteed haddii adiga aad rabto inaad wax la baxdo fadlan isku day si qaas ina iyaga u xiriirisid oo qof caan adan dhexmaray oo aad raadiso nambarkooda iyo facebookooda sidaan hore usoo sheegnay iyagana waxaa aniga shakhsiyadeeda kula talin lahaa nolosha waa tilkal ayaamna daawi lahaa beenaas adduunya yaryarootiya inaad iskugu dhacdaan waa wax laga qurux badan yahay ama hal idinka dhex shaqeeyo ama caqliyari ha ahaato waxay ahaataba walaalo ayaa tiin waa soo wada costeen waqti waa soo wada qaadateen waxaa ku murantaa meesha ma yaalaan xilliga idinku is caawin lehdeen ayaa la joogaa sida wasiirka cadaaladda social media idin sheegay mustaqbal ayaa leedihiin waxaan kusoo gabagabeynayaa ka fakera mustaqbalkiina dad walaalo ayaa tiin wejiga maanta aad ku wada joogtaan ama wejiga maanta aad ku rumaysaan weji ka duwan ayaa laga yaabaa 5 sano 6 sano kadib inaad iskaga hortimaadaan midba mid kale waxaan kula talin lahaa inuu dhigaal samaysto barnaamij midkan lamida intaanu kulmi doono sidaa nabadgelyo